السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ku xiran channelkeena qubtaan soo dhawaada. Anigoo raadinaya macluumaad ayaa waxaan arkay mid ka mid ah website-yada laga leeyahay dalka Mareykanka oo maqaal qoray ah in dadkii Mareykanka ku noolaa ee ku dhibaateysnaa ama qabay cudurka loo yaqaan Alzheimer ay ka kordheen markii horena ay ahaayeen 6 milyan laakiin ay tiradu isku bedeshay 15 milyan. Saadaalin kale oo la sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in sanadada soo socda ilaa 2025 dadka guud ahaan caalamka ku nool ee u dhibaateysnaan doona cudurka Alzheimer-ka ay gaari doonaan 159 milyan. Haddaba su'aal yar oo muhiim ah, ma kula tahay in caqligaagu ama maskaxdaadu sii shaqayn doonto muddo badan? Sidoo kale ma kula tahay caqligaaga ama maskaxdaadu inay dumi doonto marka aad gaadho cimriyada awoowayaasheen oo kale? Su'aasha jawaabteedu waa haa, sababtoo ah waxaa jira caadooyin fara badan oo lagu horumariyo dhaqdhaqaaqa iyo fikirrada maskaxda. Sidoo kale waxaa jira caadooyin fara badan oo hoos u dhiga tayada iyo fikirka maskaxda. Maanta xagga waxaan kuugu soo gudbin doonaa 6 caado oo ay tahay muhiim inaad ka fogaatid si maskaxdaadu ay u shaqeyso una caafimaad qabto. Laakiin intaan muuqaalka u guda galin waxaa codsiya inaad channelka subscribe saartid, videogana like saartid. aad u mahadsantahay. Aanu guda galna muuqaalkeena maanta. kow waxaa muhiim ah inaad ogaatid in haddii da'daadu ay ka hooseyso 30 sano, maskaxdaadu ay ku jirto xaalad loo yaqaano is-horumarinta oo ay wax badan baranayso, wax badanna ay iska bedelayso. sidoo kalena haddii da'daadu ka sareyso wixii 30 ka dhaafay, maskaxdaadu waxa ay joojisay qaybtii horumarinta ama tatawurka waxayna bilowday marxalad kale oo cusub. laakiin waxaa muhiim ah laga yaabaa in caadooyin xunxun oo soo sameyn jirtay ay weli sii saameynayaan maskaxdaada. قاعدة كلها مهمة. مهما عربي آيات راضى بأقدادها تتميز الأشياء. يعني هذا عادوين حن سمين جرثي وصفرها كقاعدة عكس كذا وحقصة بين إيمان دونان عادوين ونكسن. عادة كوبات عنتانكا وحد كبح كريكتد أما وحول بأحن أو عاد عنتد. وراه مهم وكلها في عربي آيات راضى العقل السليم في الجسم السليم، ومعناه ذو يهي عقلك السليم كا وحو كل حجرة شركة سليم كا waayo jirka hadduu waayo waxaad aragtay mar walba oo aad si xad dhaaf u dharagtid inaadan dhaqaaqi karin, aadan ordi karin, kaliya aad u baahan tahay inaad saa isku kala bixisid, caajis badan dareemaysid, isla markaana hurdo ku imanayso, xaggaasna aad ku liminaysid waqti aad u fara badan. waayo markaad wax walba cuntid mar walbana cuntid jirkaagu isku dhex daadanaya, ma fahmaysid, mad gaajoonaysid ma dharagsanayd, waayo 24 saac waxun baad cunaysaa. caadadaasaad ku horumarin lahayd waa inaad isku daydid inaad soontid maalinta Isniinta iyo Khamiista oo sunno u ahayd nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyo weliba sidii xadiidka nabiga u ahaa inta dambe haddaan ka soo qaadano fa thuluthun li ta'aamihi wa thuluthun li sharaabihi wa thuluthun li nafasihi. 3 meelood meel cuntadaada u qaybi, 3 meelood meelna sharaabkaaga iyo cabitaankaaga, qaybta kale soo hadhayna li nafasihi. caadada labaad oo u muuqata inay ka daran tahay tii hore waa inaad qabatid wax badan hal waqti. ma arkaysid badanaa dadka ka warrama maskaxda iyo sida loo horumariyo iyo sida howlaha loo kala fududeysto ilaa iyagoon ka hadlin inuu qofku iska daayo inuu qabto howlo badan hal waqti. taasna waxaa ku cadayn karta tijaabo yar oo la sameeyay. tijaabadaas oo ah waxaad qortaa 1 ilaa 7, 1 2 3 4 5 6 7. xagga kalena waxaad ku qortaa waxaad doonto. assalaamu calaykum waryaa hebelowga ku qor. ma aragtaa soo dhib yartahay? haddaba tijaabadu waatan. waxaad qortaa 1, waxaad u xigsiisaa ha, xigsiisaa 2, xigsiisaa ma aragtaa see u adag tahay, waqti badan noo qaadanayso. sidaas la mid ah 2 hawlood oo hal waqti isla qabatid waxay luminaysaa waqti badan, natiijo fiicanna ma keenayso. haddaan ku siiyo tusaale kale oo wada fahmayno, ka soo qaad waxaad seexatay adoo daalan ayaad soo gashay guriga, waxaana seexatay fadhiga. qof ayaa ku yimid oo ku kiciyo ku yiri ka cod seexo. waxaad seexatay qolkii kale ee ku xigay, laakiin qolkaagii ma ahayn. haddana waa laga kiciyay, waxaa lagu yiri qolka kale hor tag. ma aragtaa soo dhib badan tahay, hurdadaadu iyo masaajkaaguba uu khaldamayo. sidaas la mid ah haddaad 2 shay hal meel qabatid, kanaad ku boodid, natiijadoodu iyo weliba midhahoogu ma fiicnaan doonaan. caadadanna waxaad ku horumarin kartaa inaad hal shay diiradda saartid, halkaas shay markaad ka keentid wax fiican aad u gudubtid shayga kale, natiijana waad arki doontaa insha Allah. caadada saddexaad waa
cabsida xad-dhaafka ah ama walwalka faraha badan ee aan loo baahnayn. Waxaa runa inay noloshu wajiyo badan tahay, qof kastana uu leeyahay hawshiisa u gaarka ah, qumanihiisuna qoortiisa u suran yahay. Cabsida saa'idka iyo walwalka faraha badan runtii waa waxaana loo baahnayn qofku inuu mar walba ka walwalo shay aan muhiim ahayn. Tusaale inuu dhaho ka waran wixii aan meesha saaray haddii laga qaato, ka waran haddii macalinku saa yidhaahdo, ka waran haddii waxaas dhacaan. Cabsi iyo khayaali uu ku noolaado qofkaasi runtii nolosha challenge-yadeeda iyo dhibaatooyinkeeda uma adkaysan karo, waayo mar walba maskaxdiisu waxay ku duuban oo ka cabsanaysaa wax aan dhicinba. Caadadanna saad uga takhalusi lahayd way dhib yar tahay, waana cabsida un jooji. Kulley wax kale ma jiraan, cabsida un jooji bas. Sameena wax walba u arkaysay inay dhib yihiin ood ka cabsanaysay inaad xaqiijin kari lahayd, adigoo ka bilaabaysay u kala adag yihiin. Waanaad ka bixi doontaa insha Allah. Caadada afraad waa inaad 24 saac hor fadhido musalsalada iyo weliba diraamooyinka khayaaliga ah ee lasoo jiro. Hadday noqdaan Hindi, hadday noqdaan Faransiis, Turki, waxay doonaan ha noqdaan, inaad maanta oo dhan hor fadhido shaashadda daawanaysidna musalsal. Xitaa haddaad is leedahay waxaad daawataa hal xalqadood oo 20 daqiiqo dhan, ogow aqligaagu inuu shubayo ama uu buuxsanayo kuna socdo musalsalkaas qisadiisa waxa uu ku saabsan yahay, waayo waxa uu noolaan doonaa khayaali. waxauna la farxi doonaa farxadda ay faraxdo gabadha filinka jilaysa ama wiilka filinka jilaya, waxayna la murugoon doontaa murugada uu murugooday. waxauna noolaan doonaa qisada khayaaliga ee uu nool yahay kaa filinka jilaya laftigiisu, lamana qabsan doono waaqica taagan iyo noloshiisa iyo hareerihiisa waxa ka dhacaya. caadadan aadka u xun runtii saad uga takhalusi lahayd waa inaad iska yarayso oo keliya filimaantaas iyo musalsaladaas waqtigaagana dilaya, maskaxdaadana halaagaya. waayo waxaa hubaala intaad imika yartahay haddaad caado fiican naftaada ku tarbiyan weydid, markaad weynaato inaad ka qoomayn doontid. caadada shanaad waana caado la iska wada garanaya runtii, aanad islahayd way ku jiri doontaa muuqaalka, waayo 1 maaha oo 2 maaha inta laga hadlay, ilamana aha markii koobadeed maqli doontid. waana social mediaha. waa run, social mediaha laga yaabaa inaad ku jirto dadka sida wanaagsan u isticmaala social media, lagana yaabaa inaad tahay dadka sida xun u isticmaala, walciyaadu billah. horta ma ogtahay meelahan aan isticmaalnay social mediaha inay soo daayaan kalar buluuga, kalarkaas oo noo diida in aan seexanno, maskaxdeenana ku programmiya in uu sii dhex socdo ama meelba meesha kasii dambaysa uu usii gudbo una kasoo bixin hal mar. godkaas jaxiimada halaaga badan, mawduucba mawduucu ka duwan yahay, hadalba hadalku ka dambeeyey iyo weliba warba warbu ka xiisa badnaa ayuu kuusii gudbinaya. waxauna kuu sababayaa inaad maskaxda ka daasho, lagana yaabaa mararka qaar adigoo isticmaalaya taleefankaaga dhankaasna ay kaala hadlayso hooyada in aadan maqlin. waad maqlaysaa laakiin aadan u jawaabi karin, waayo waxaad rabtaa inaad akhrisid ama aad daawatid muuqaalkan socda oo qalbigaagii iyo caqligaagiiba xaggiisa usii jeedaan. caadadanna sidaad uga takhalusi lahayd waxay ila tahay waa inaad iska yaraysid social mediaha, naftaadana ku challenge-yeysid. waa run lama deyn kara taleefanka, waana shay imika aas-aasi u ah nolosheenna, laakiin naftaada challenge ku samee oo garo xilliga ay u baahan tahay iyo xilliga ay wakhtigu ku luminayso. kala garo xilliga ay u baahan tahay ee ay ka faa'iidaysanayso iyo xilliga ay wakhtiga ku luminayso. sidaana waxaad ku garan doontaa xilliga uu kuu fiican yahay iyo xilliga uu kuu xun yahay. caadada 6 waana hurdo la'aanta. runtii hurdo la'aantu waa caadooyinka ugu xunxun ee uu qof la kulmi karo. hurdada asalkeedu ama faa'iidadeeda ugu weyn waxa weeyaan, ma ogtahay in marka la seexdo hurdada maskaxdaadu ay sii shaqaynayso, iskana sifaynayso dhibaatooyinkii ama daalkii faraha badnaa ee maalintii 12 saac ay la soo kulantay, iskuna sifaynayso, iskuna diyaarinayso iyadoo nadiifana si ay u gasho maalinta labaad shaqo walba oo ka hor timaadana ay u qabato. macluumaad kale ayaa sheegaysa in qofka hurdo la'aantu ku dhacdo uu ka weynaado ama u ekaado mid ka weyn cimrigiisa 5 sano. u fiirso, hurdo la'aantan aad moodaysid inaad iska soo jeedid adigoo WhatsApp iska isticmaalaya gruubyada iyo waxaana ka dhex walwaalaya ama ka dhex sheekaynaya, in maskaxdaadu ay halis ugu jirto inay awood badan lumiso. aroortiina aad soo kici kari weydid, maalintaadana aad bilaaban kari weydid. waxaa tala iga ah inaad hurdadaada jadwalkeeda ku dhaqantid, xilligii loogu talagalayna seexatid.
maalintii waxaad u baahan tahay inaad qabsatid laakiin habeenkii aad seexatid waa sababtu nabigu u yidhi cishaayiga kadib hal iska seexdo muuqaalkeena maantana intaas ayuu ku eg yahay fadlan hadaa channelka ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay commentigana igula wadaag haddii aad waxuun ka faa'iiday warajeyna inaad waxuun ka faa'iiday hal shayna allaha ka dhige waxaan idinkaga tegayaa peace